السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waan islaamayna akhyaarta ku xiran cunka official Axmed Ayr cunke oo maanta ku qabanayo meeting ama shir jiraa'id meel mool ah Cabdiqani cunke noo waran xaaladaha social media iyo doorashooyinka intaba kula soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جراد أي شعب كيجا نبدأ الله وكلا قاعدو arrimaha maalmaha social media ku fogaan maayo laakiin hal qodob baan ka dhacayaa qodobkaas oo ah ninka la yiraahdo Daahir Cali Suug wiil yar oo u dhali karo doorta haysta ku dhagan yahay waa garan waxaan leeyahay Daahir Cali Suug habeenkan dabka leexday iyo maanta oo aan soddon jiro social media ku arkay baleenkaagana qarnigii 21aad baa lagu jiraa oo si shakhsiyan nasiixa aan kula hadlayaa qarnigii 21aad baa lagu jiraa wax 1990 laga tagay baad maanta yani dubaan u tunto awal qabyaalada dhex waday social media waxay ahayd siyaasadda dhalinyaraduna siyaasadda waa ka madax bannaanay fankii baad hadda qabyaalad u beddeshay weliba dhalinyaradii waxaan ku dhahayaa inuu ilaahay inta ka baqday konton jir baad tahay ka daa qabyaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ka daa qabyaaladda muqdisho waa umukaale waad aragtay say ahayd madaxtooyada Soomaaliya nin baa casho ku kusan jiray Xuseen Caydi Allahu naxariisto Cabdullaahi Yuusuf baa calan ka taagay oo kaliin gareeyay xaaqay maantana say waqtiga u jeeda farmaajo ugu jiro niyo masaasaad muqdisho la rabtaa ka daa muqdisho sama geedo muqdisho Soomaaliya dhan ka dhaxaysaa garow sidoo kale baydhabo sidoo kale Kismaayo sidoo kale dhalinyarada boqolkiiba 75 Soomaaliya dhalinyaradu garaad oo ku fogaanaya gaar hal noqo dhalinyaradaasuna qabyaalad bartaas qurbaha maanta dhigtay oo xutuban ku habadin kuwa maanta Soomaaliya jooga oo yani nimcada ku haysta qabyaaladaas sharba boy waxaan leeyahay sharba boy yoorta shalay waan ceebaysay adiguna waa saxaabaysay ma ahan qori inaad tahay fanaan Soomaaliyeed baa ahayd inaad qori tal raadi yani odaga adeerkaaga hadduu ku khaldamay inaad tiraahdo bilaa cala suug yani taa waa ku khaldanayd cidii garab kugu siisana waa ku khaldanayd laakiin waxa la yidhi ninku 20 jir intuu yahay buuhaa ninka geed ka boodo 20 jir kaga intuu 20 jir baa la yidhi intuu geed ka boodo butale ka booda 20 jir baa tahay وقفوا وقارنتاس مرجع اسكبل هذا كعلي هذا كواعي ونيك سوق رداديين أنا هذيك رداديين مقرأ نقرأ مركع أنت هذا سوق بو صوماليا إنها أبلا في ماتو هوا باير دار على سوق بعمل سوق الجبنية نقدر قبيلة فكنا كده قبيلة والغير قاعد أوريه تنا فرح كذا ها يو شنو على البانلا شنو هذا شو قبيلة وحان لو بيلبات كرادسة لا تفكرت إن شغيست حرفة بدل ما هو شغيست يعني قبيلة هو شغيست وحان مركز دمتي بقوريا لا أو نكا كابتني وواقع غيره كل كما غني وقليني وواقع غيره وحان كنت غيره هذا الكيس وعدي أصلا ربع يا إيش بعد ربع يا على السوشيال ميديا تنبدأ سوق الدور Soomaaliya ما أنت قول بأسرة ويتي ولا شيء حفظ الله يسير عبد الله الدني يو أحمد محمد الإسلام أنت والله وصل وحين كل ما أعطي سجاشن بري وتري مانسس نود بدور شو هذه فما كنا دور شو ناقص صعب كلا حس شو ناقص صعب كلا نقول بوعو هلا يعني هلية نقول بوعو عارف كيسي نسيب هلية لكن مرجع يتفاشل نصونه إن شاء الله في الماتش إن شاء الله
sidaan Soomaali ku naqaanay badanaa qof haddii mar la doorto mar labaad ma soo noqdo haddii markaad u saadaalisay maxaa is leedahay odayna aad tahay saadaalinayaa oo weliba usan sharaxin laakiin hadduu sharxo aan xoogaa xanna aan hayo si cabdullaahi dani inuu waddanka aftan soo socotaa hogaaminaya insha allah laakiin weli ismu sharaxin laakiin waa yani xan baan yani hayaa waa nin hogaamin karaa insha allah بالله kusoo maxaa kaloo weydiinaysaa hawshu caawa intaan nagu ekaato waan ku mahadsan tahay xogta aadna siisay cunke waan kaaga mahad celinaynaa fiqi dalkuna insha allah mid noqonaya dadkuna mid bay noqonayaan dhallinyaradana waxaan leenahay baan ku dirsanayaa aye in la yidhaahdo doole abdaabsin la yidhaahdo baan rabaa hal yaroo kaftara inaan u raaciyo kolley daawanayaa kilibkaan laakiin negative bostii soo qoraya waa saaxiibka aan jeclahay laakiin doola waxaan leeyahay doolow attenzione waa kalmad faransiis ah adagu faransiiskiisina waa ku tuurtay suldaankuna waa maqlayaa axmed cabdi abshira waana in islaamaynaa dhallinyaradana waxaan kala dardaarmaynaa qabyaalada laga dheeraado dadku waa isku mid Soomaaliya waa mid hal midoobo